بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kusoo dhawaada channelka anaga ugu barateen barashada maadooyinka sayniska iyo computerka. Maanta waxaan rabnaa inaan hore usii guda galno casharkii dhexda noo joogay ee maadada xisaabaadka fasalka 12aad ee manhajka cusub ee Soomaaliya. Example-kan wuxuu leeyahay waxaad qortaa cos 180 minus theta as a trigonometric function of only theta. Wuxuu leeyahay waxaad xalisaa cos 180 laga jaray theta, waxaad noo xalisaa fansaarka trigonometriga aad ku xalinaysaa ayuu leeyahay. Marka hore waxaan usoo qaadanay cos identity ayaan soo qaadanay qaacidooyinkii ka hadlayay. Mid ka mid ayaan isticmaali doonaa oo ah cos 180 minus theta, maadaama waxaan isticmaalayna cos ama qaacidada aan rabno inaan identity-giisa isticmaalo uu yahay cos, haddana uu minus yahay. Cos dabcan waxaa lagu furfuri jiray cos aan hore usoo tilmaanay sin. Angoladan waxaan dhahnay waan kala siinaynaa si ay u kala horeeyaan. Cos 180 theta gudaha markay minus tahay, banaanka plus ay noqonaysaa 180 theta. Sidaasaan u kala furfurayna. Okay, halkan waxaan ognahay cos 180 unit cycle-ka intay ka tahay. Okay, unit cycle dabcan haddaa ilowday wuxuu ahaa 0, 90, 180, 270 sidaan buu ahaa. Halkan markaan joogno waa 1,0 unit cycle-ka 90 degree ama y axis-ka markuu joogno waa 0,1. halkan marka wuxuu noqonayaa cagsiga x axis-ku noqonayaa left side-ka ah wuxuu noqonayaa -1,0, halkan wuxuu noqonayaa 0,1. Okay, marka cos 180 saan hore u tilmaanin waxaana across x axis-ka cos function ayaa loo qaataa, y axis waxaa loo qaataa sin function. Therefore halkan markaan joogno cos 180 waan naqaanaa. Halkan cos waa midka ugu horeeya, sin waa midka dambe. Cos 180 halkan wuxuu leeyahay -1 lagu dhuftay cos of theta plus aan leeyahay sin 180. Sin 180 waxay leedahay 0 lagu dhuftay sin theta. Okay, 0 wixii lagu dhufto waa 0. halkan waxaan isku dhufanayaa -1 times cos theta waa negative cos theta. Negative cos theta. Example 1.3 halkaas ayaan kaga gudubnay. Waxaan u gudbaynaa example 1.4. Example-kan wuxuu leeyahay common household electric current is called alternating current because the current alternates direction within the wire. The voltage V in a typical 115 volt outlet can be expressed by the function V let us write example 1.4. By the function Vt is equal to 163 sin omega t, where omega is the angular speed in radians per second of a rotating generator. At the electrical plant and t is a time measured in a second. It is essential for electric generator to rotate at precisely 60 cycles per second, so household appliances and computers will function properly. Determine V for this electric generator. B graph V in the window 0,0.05 by -200 to 200. C determine a value of phi so that the graph of Vt is equal to 163 cos omega t, or omega t minus phi, or phase angle, is the same as the graph of Vt is equal to 163 sin omega t. Example kan markuu application question oo khuseeya analytic trigonometry wuxuuna leeyahay example kan common household electric current qulqulka danabka ee guriyada caadiga ah iskool ayaa loo yaqaanaa alternating current danabka isrogroga ayaa loo yaqaanaa uu leeyahay because sababta loo dhahay alternating current waxaa waaye the current alternates direction in the wire. qulqulka danabku wuu isrogrogayaa fiilada dhexdeeda markuu ku socdo. The voltage V in a typical 100 volt outlet can be expressed by the function voltage-ka ama awoodda danabkana waxaa lagu soo saari karaa uu leeyahay fansaarkan ayaa lagu soo saaraya V oo time outlet-ka ah wuxuu leeyahay 163 sin omega t. Function-kan ayaa lagu soo saari karaa ayuuna leeyahay. Okay, where W ama omega-na
loo yaqaano angular speed xawaare xagleed ayuu leeyahay xawaare xagleedka ee loo yaqaano of the rotating generator shingia motorka wareega sameynaya at the electrical plant markuu soo saaray danabka and t-na oo halkan ku jirto t-danna ay tahay time measured in second time ku cabiran ilbiriqsi ku cabiran ayuu leeyahay. Okay, su'aalaha waxayna leeyihiin it is essential waxaa aad muhiim u ah waa su'aasha it is essential waxaa aad muhiim u ah ayuu leeyahay for an electric generator motorka generatorka korontada soo saaray to rotate inuu wareeg sameeyo ama inuu wareeg sameeyo precisely ku dhowaad 60 cycles 60 cycle inuu sameeyo number of cycles uu sameyn kara ama number of oscillation on down uu sameyn karo waa 60 cycles ayuu sameyn karaa ilbiriqsi. Okay, per second 60 cycles per second ayuu sameyn karaa. Okay, so household appliance and computers will function properly saas awgeed maacuunta guryada lagu isticmaalo computerada will function properly si qumaati layse ugu shaqeeyaan. Determine v waxaad sheegtaa ama raadisaa uu leeyahay awoodda danabka for this electric generator motorkan ama shingian uu soo saari kara ayuu leeyahay. Okay, waxaan leenahay voltageka awoodda danabka waxaa lagu soo saaraa leeyahay ama qaacidadana la siiyo waa 163 sin omega t. Functionkana lagu soo saari karaa outlet. Therefore, functionkan inaan isticmaalo time outlet uu ka yahay number of cycles and number of oscillation la siiyey waxaan heli karnaa omegada functionkan ku jira ayaan heli karnaa ama awoodda waxaan rabaa xawaare xagleedka uu sameynayo shingia motorka wareega ayaan heli karnaa. Okay, angular frequency waxaa lagu helaa qaacidadan oo isticmaalayna waa 2 by f ayaan ku raadinaynaa. Halka f halkan frequency-ha aan u qaadanayno number of oscillation tirada wareega uu sameynayo aan u qaadanayna omega frequency. Therefore, halkan waxaa noo sahlanaanaysa inaan helno angular frequency 2 lagu dhuftay by 160. Therefore, 2 by ku dhufo waa 2 times 60 waa 120 by radian 120 radian per second. Angular frequency wuxuu noqonayaa marka xawaare xagleedka ama xagasha shingiga ku wareegayso waxay noqonaysaa 120 by second ay noqonaysaa. Okay, waxaan haystaa angular frequency. Voltage hadda ma heli karaa? Voltage waan heli karaa. Time outlet-ka 163 sin meesha omega waxaan ku bedelayaa qiimaha aan soo helay by t by halka second aan u qaadanayo t. Halkaas waxaan ku xalinay su'aasha qaybteeda b example 1.4 wuxuuna leeyahay graph waxaad sawirtaa the voltage awood danabkan graafkiisa sawir ahaan ku muujiyo leeyahay window qaanadaha kala ah 0 time interval kuwa 0.05 by negative 200 to 200 waa amplitude fogaanta across uu ku sameyn karo amplitude-ka uu sameyn karo waa negative 200 to 200 halka time interval kiisana fogaanta x axis uu jari karo ilbiriqsigiiba ama timeka graafka x axis uu jari karo intaan waa. Therefore, waxaan sawiraynaa graafka inaan sawirno waxaan u baahannahay kow inaan ogaano tirada jeer graafkan cycle-ka uu sameynayo imisa cycle ayuu sameyn karaa graafkan maadaama hore naloo siiyey frequency rikaadka uu sameynayo graafkan yani shingian rikaadka uu sameynayo hore naloo siiyey waxaa noo fudud inaan helno number of cycles tirada cycle uu sameyn karaa ayaan heli karnaa. Okay, number of cycles waxaan ku helaynaa in this case number of cycles waxaan ku helaynaa is equal frequency times time interval. Number of cycles waxaan ku heli karnaa frequency rikaadka uu sameynayo shingihan wareega sameynayo korontada dhalinayo lagu dhuftay time interval waqtiga faraq waqtiga uu ku sameynayo graafka uu ku jari karo
okay time interval waa kana waa haystaa waa 0.05 from 0 to 0.5 halka frequency-gana aan haysto 60 cycles therefore 60 times 0.05 halkan waxaan heli karaa eber la bixi 5 times 6 waa 30 ebertaas la bixi 3 cycles aan helaya number of cycles oscillation-kan wareegan uu sameyn karo waa 3 cycle ayuu sameyn karaa okay halkan markaan joogno waxaan sawiri karnaa marka si fudud aan ku sawiri karnaa graph sababtoo ah waxaan haystaa interval time interval waan haystaa amplitude-ka graafka uu sameynayo kor iyo hoosna waan haystaa tirada jeer graafkan uu sameynayo waxaan rabaa waves tirada wave uu graafka uu sameynayo waa haystaa waa 3 waves uu sameynayo okay therefore let us draw the graph graafkan sawirayna graafkan wuxuu leeyahay saan u sawiray okay graafka hoos wuxuu soo gaaraa -200 korna wuxuu gaarayaa 200 okay wuxuu ka kacayaa la 0 fogaanta uu gaari karano waa 0. waqtiga uu ku gaari karo waa 0.05 number of cycles uu sameynayna waa 3 cycles therefore wuxuu gaarayaa graafkan 200 uu soo laabanaya -200 uu gaarayaa 1 cycle uu sameeyay okay 200 uu gaarayaa -200 ay hoosna gaaraya waa another cycle cycle-ka saddexaad wuxuu noqonayaa marka 200 to -200 graafkaada sidaas ayuu u sameysmayaa su-aasha qaybteeda B halkaas ayaan aga bixinaa waxaan aadaynaa su-aasha qaybteeda C oo ah determine phi-dan waa phase angle therefore waxaan rabnaa inaan ogaano xagasha uu shingiyaha wareega markuu sameynayo motoorka korontada dhalinayo wareega markuu sameynayo phase angle-ka uu sameynayo waxaa la lahay VT graafkan 163 cos omega t minus phase angle wuxuu la egyahay is same as 163 sin omega t labadan graph waxaa leeyahay labadan function way isla egyihiin leeyahay okay maadaama labadan function ay isla egyihiin waan isu barbar dhigaynaa 163 isla bixi waxaan leeyahay cos omega t minus phase angle wuxuu la egyahay sin omega t waxaan ku qornayaa equation-ka koowaad okay markii aan fiirino equation-kan markaan fiirino ama function-kan aan fiirino waxaa u muuqanaysa co-function qaacidooyinkii ama co-functions identities mid ka mid ah xiriirka ka dhexeeya sin iyo cos inuu yahay therefore waxaan soo qaadanaynaa co-function identity-ga uu leeyahay coska uu leeyahay ama cos iyo sin co-functionkiisa soo qaadanayna okay co-functionkiisa oo ahaa cos maadaama radian uu yahay angle-kan waxaan isticmaalayaa pi over 2 minus x is equal to sin x sidaanan leeyahay okay from here si aan qiimaha phase angle-ka meeshaas ku jiro ama calaamadan phi-ga meesha ku jirto qiimaha si aan u helo trick yar ayaan sameynayaa trick-gaas wuxuu noo sahlayaa inaan helno calaamadaas phase angle-ka trick aan sameynayno waxaa waaye waxaan baraha u kala bedelaynaa pi iyo x aan baraha u kala bedelaynaa haddaan u kala bedelno baraha what will happen maxaa dhacay nothing will happen wax dhacay ma laha therefore waan xaqiijinaynaa will prove in haddii positionada aan u kala bedelo ay wax dhacayaan waan xaqiijinaynaa okay waxaan leeyahay cos let us say cos x minus pi over 2 ma la eg tahay pi over 2 minus x yes way la eg tahay siday ku la eg tahay halkan pi negative ay wadataa halkan laakiin ma wadato x inta positive ay ka tahay halkanna waxay ka tahay negative say ku la ekaan kartaa we will prove okay waxaan sameynaynaa common factor ayaan ka saaraynaa midaana waxaan ka saaraynaa common factorka negative-kan common factorization ku sameynayna negative-ka banaanka ii dhigo pi over 2 okay negative-kan hadduu uu ku dhaco negative-kan maadaama aan common factor aan ka saaray aan factorization aan ku sameeyay negative-kan haddii negative-kan uu ku dhaco muxuu noqonayaa positive uu noqonayaa positive x uu noqonayaa
positive x. Okay, function kan haddaa fiirisid iyo function kan aad isku fiirisid maxaa what is the difference? Nothing is difference. Wax farqiga u dhexeeya malaha. Why? Sababtoo ah negative haddaan pi all over 2 oo ku dhufto negative pi all over 2 ay noqonay. Okay, haddii negative-ka aan ku dhufto negative x positive x ay noqonay. qiimihii isma bedelin, wax isbedeli malaha. Therefore waxaan qaadan karaa cos x minus pi all over 2 ayaan u qaadan karaa instead aan qaadan lahaa pi all over 2 minus x is equal to sin x aan leeyahay. Equationka labaad aan u qaadanana. Equationkii hore aan equation 1 aan ku qoray iyo midkaana hadda waxaan ku sameynaynaa comparison aan ku sameynaynaa oo ah cos iyo cos way isku aadin waa isku qiimo omega t iyo x waa variables. Therefore negative phase angle iyo negative pi all over 4 waxay noqonayaan isku qiimo ay noqonayaan maadaama labada cofunctions isku yihiin. Okay, aan soo qaato meeshan negative phase angle is equal to negative pi all over 2. Marka maadaama phase angle negative uu wato negative kan waan ka saaraya all over negative 1 aan ka saaraya halkan u qaybi halkan negative 1 u qaybi negative negative isla baxayaan. Phase angle wuxuu leeyahay pi all over 2 ayuu leeyahay. Phase angle wuxuu leeyahay pi all over 2. Marka qiimihiina laga rabay inaan raadino oo phase angle-ka ah su'aasha qaybteeda C halkaas ayaan ku xalinay oo waxay noqotay pi all over 2 oo u dhigan degree ahaan 45 degree. Okay, waxaan u gudbaynaa example-kii ugu dambeeyay ee qaybtan. Ustaad waxaan sameynaynaa the simplest way aad ku fahmi kartid ama aan ku xalin karna ayaan raacina oo ah waxaan sameynaynaa angle-kan waxaan u bedelinaynaa degree ayaan ka dhigaynaa angle-kan waxaan u bedelaynaa degree ayaan u bedelaynaa oo ah 3 pi all over 2 micnaheedu waa 3 lagu dhuftay 180 all over 2 waa 540 loo qaybiyo 2 oo la eg 270 degree. Angle-kan 3 pi all over 2 degree ahaan wuxuu u dhigmaa 270 degree. Therefore halkan waxaan ku bedelayaa 270 degree minus theta is equal to negative c sc theta. Okay, hadda waxaa ii sahlan 270 inaan unit cycle-ka ka raadiyo degree ahaan inaan u raadiyo ii sahlanaanayso. Okay, sec muuqaalka ka horeeyay maxaan soo tilmaanay sec theta in lagu helayo 1 over cos theta. Therefore meeshan waxaan leeyahay qaybtan waxaan ku bedelaa 1 over cos theta-dana waxay la eg tahay 270 minus theta. 270 minus theta. qaybtan aan fududeynayna marka. Okay, halkan waxaa ka cad in cosine identity inaan la aadayn sababtoo ah waa cos oo laba angle oo la kala jarayo. Okay, waxaan leeyahay cos sin cos 270 theta meeshan waa minus halkan plus ay noqonaysaa 270 theta. Okay, unit cycle-ku waxaan ognahay 270 intay la eg tahay unit cycle-ku ognahay. Unit cycle-ku markuu saan yahay 270 halkan waxay noqonaysaa 0.1 halkaana 90-ga wuxuu la egyahay 0.1 uu la egyahay. Okay, cos 270 meequu la egyahay? Cos 270 wuxuu la egyahay 0 uu la egyahay. 0 times cos theta plus sin 270 meequu la egyahay? Negative 1 buu la egyahay lagu dhuftay sin theta. Okay, 0 wixii lagu dhufto waa 0 negative 1 times sin theta waa negative sin theta. Okay, meeshan maxaa ii yeelay 1 baa ii yeelay waxay noqonaysaa marka 1 over negative sin theta. 1 over sin theta yaa qaacid ahaan iska lahaa waxaa iska lahaa c theta bay iska leeyahay maadaama sinka negative uu wato negative c. Therefore waxay la ekaanaysaa negative c x maadaama markiisa hore aan kasoo derive gareynay waxay la ekaanaysaa negative c x maadaama markiisa hore aan kasoo derive gareynay radian waxaan ku celinaynaa radian.
Okay, halkaas waxaan u gudbaynaa example-kii koobnaa ee noogu talagalnay casharkii noo soo socday form 4 chapter-kiisa koowaad analytic trigonometry. Waxaan u gudbaynaa insha Allah